عليكم qisadan amba dhacdadan ayaa ah dhacdooyinkii ugu hadalhaynta badnayd ee ka dhacday wadankaasi Mexico. Soo dhawow channelka subscribe noo saar, like noo saar, inoo share gare. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Haddaba qoyskan oo lagu kala magacaabi jiray Emiliano iyo Maria ayaa waxay ahaayeen qoys ku nool wadankaasi Mexico. Xaaladooda dhaqaalena ay aad u hooseyso. sanadku markuu marayay 1947 bishii afaraad ayaa waxa uu dhashay wiilkoodii koobaad kuwaasi oo ugu magac dareen El Chapo. haddaba wuxuu ahaa wiil degan oo akhlaaq leh oo dadyoogii ay ku tilmaameen inuu yahay wiil degan. haddaba El Chapo waxa uu iskuulkiisii amba sanad dugsiyeedkiisii kaga baxay sanadkii saddexaad marka uu marayay ayaa uu ka baxay xaalad dhaqaale oo haysatay familkooda awgood. haddaba El Chapo markii uu ka baxay iskuulka waxa uu la shaqo bilaabay aabihii oo uu ka shaqayn jiray amba uu ka caawin jiray beer yar oo uu ka shaqayn jiray aabihii. haddaba El Chapo in muddo ah markaa uu beertaasi ka shaqaynayay ayaa waxa ay isku dhaceen aabihii, taasi oo ugu dambeyntii El Chapo keentay inuu ka tago gurigii waalidiintii oo uu tago guri uu awowgii lahaa. El Chapo in muddo ah waxa uu ku soo barbaaray amba uu ku soo koray uu nin weyn ku noqday gurigii awowgii ilaa ay ka bilaamayso qisadiisii madoobeed halka ay ka bilaamayso. maalin maalmaha ka mid ah ayaa El Chapo waxa uu la saaxiibay nin ka shaqeeya amba ka ganacsada arrimahan daroogada iyo dhacaya dilka waxaasi ka ganacsada. ninka El Chapo waxa lagu daray koox uu hogaami jiray ninkaasi uu la saaxiibay. El Chapo waxa uu la shaqaynayay kooxdaasi sanado aad u fara badan halkaasi oo kooxda uu kula geysanayay amba uu kula fulinayay. haddaba El Chapo sanadu markay maraysay 2001 ayaa waxa lagu qabtay isaga oo faldambiyeed gacanta kula jira, isaga oo xadayay amba dhac u geysanayay dukaan ku yaalay Mexico. markii gacanta sidaasi loogu soo dhigay El Chapo in bil ah uu ku jiray xabsiga ayaa ninkii El Chapo waxa la soo istaajiyay maxkamad waxaana lagu xukumay xabsi daa'in ah. haddaba ninkii El Chapo markii uu sanado badan uu ku qaatay xabsigaasi ayaa waxa uu qorsheeyay in uu ka dhex baxsado xabsigan, taasi oo la kaashanayo amba ka caawinayo baxsadkiisaasi qoladii uu ka tirsanaa ee uu hogaamiyaha u ahaa ee kooxdii daraagiska iyo waxaasi ka ganacsan jirtay. haddaba waxaa loo baahan yahay kooxdaasi iyo ninkan El Chapo qof amba koox isku xidha. haddaba ninkan El Chapo waxa uu bartilmaamsaday nin ka dhex shaqayn jiray saldhiggaasi oo u shaqo lahaa xaaladda caafimaad ee maxaabiista. haddaba ninkan El Chapo waxa uu la saaxiibay ninkan dhakhtarka oo in muddo ku qaadatay in ay si fiican isku dhex galaan. haddaba markii ay si fiican isku dhex galeen ayaa ninkan El Chapo waxa uu ninkan dhakhtarka u soo jeediyay qorshihiisaas waxaana uu ballan qaaday lacag aad u fara badan. haddaba ninkii dhakhtarka ayaa shaqadaasi amba howlgalkaasi ogolaaday waxaanu isku xidhay ninkan El Chapo iyo kooxdiisii adigu sidii uu qorsheeyay ayuu arrinkii u geeyay ninkii dhakhtarka saldhigga dabadiisa ayaa waxa ay ka soo qodeen god aad iyo aad u dheer oo geynaya godkaas dabadiisa markuu ka soo bilaabo wuxuu toos u geynayaa qolka uu El Chapo ku jiro suuliga. haddaba qodistaas godkani aadka u dheer waxa ay la kaashadeen nin injineer oo ka soo jeeda South Africa kaasi oo ka soo shaqeeya wadamo badan sida Jarmalka iyo Portugal. qorshaha godka la qodayo waxa ku baxay lacag gaadhaysa $1 milyan, taasi oo u baahdeen kooxdu oksijiin fara badan iyo qaboojiyaal maadaama marka la qodayo godka ay aad u kulul yahay dhulka hoostiisu. haddaba qorshahaasi uu hirgalay oo godkii siday rabeen ayay u qodeen waxaanay ka soo saareen suuliga bartu ku beegnaa qolkii El Chapo uu ku jiray.
haddaba taariikhdu markii ay maraysay 2015 bishii 6 11 ayaa habeenada ka mid ah ayaa ninkii Al-Jabba ahaa waxa uu iska dhigayaa qof galaya suuliga sida CC kaamiradu duubtay. waxa uu iska dhigayaa qof galaya suuliga markii uu sidaasi u fadhiistay ee saasi CC kaamirada uga qarsoomay ninkii Al-Jabba ahaa dib looma arag. haddaba ninkii Al-Jabba waxa uu ka dhex baxay godkii ay qodeen kooxdiisii waxaana dabadda ku sugayay kooxdiisii oo halkaasi ka qaaday. haddaba subaxnimadii markii ay saasi u gaadhay ee quraacdii maxaabiistii u soo baxeen ayaa waxaa la tabay qolkan inaanay cidba aanay. haddaba ciidankii waxa ay soo galeen qolkan waxa ay way baadheen waxa arkay godkan aadka u weyn ee ka qodan dhanka suuliga. markiiba waxay xaqiiqsadeen in ninkii Al-Jabba ahaa in uu baxsaday. waxa ay howlgeliyeen ciidankii waddankaasi Mexico ilaa iyo CID-dii. ninkan raadintiisa waxay qaadatay in muddo ah ilaa laga soo gaarayay 2016 bilowgeedii. haddaba 2016 bilowgeedii waxaa dhacay ninkii Al-Jabba ahaa oo ay ku raadtiraan qolo CID ah ayaa waxaa lagu arkay ninkii Al-Jabba ahaa isaga oo ka soo baxaya meel baar ah. markii uu saasi ciidankii u arkeen ay xaqiiqsadeen inuu ninkii yahay ayay markiiba waxay yiraahdeen qabta. way eryadeen u baxsaday isaguna orod buu yiri way baxsadeen. ciidankii uu ka orod dheerin kari waayay markiiba waa la qabtay. haddaba markii sidaas loo qabtay ninkii Al-Jabba ahaa waxa lagu celiyay xabsigii in muddo ah markii ku jiray amba muddo waxay gaadhisay 2 bilood iyo badh markii ku jiray ayaa waxa la soo istaajiyay maxkamadda halkaasi oo lagu xukumay xabsi daa'inkii uu ku xukunaa iyo 30 sano oo dheeraad ah oo xarig ah. run ahaantii qisadani waa qiso ka dhacday waddankaasi Mexico oo xaqiiq ah taasi oo laga metelay filmaan aad u fara badan. dhacdadan oo lagu magac daray baxsadkii dahabiga ahaa ayaa waxa ay soo jiidatay filmaan sameeyayaal aad u tiro badan kuwaasi oo ka sameeyay filmaan aad u kala duwan. haddaba qisada ninkan oo ilaa xidhan ayaa ah qisooyinka ugu caansan waddankaasi Mexico. marka baxsad laga hadlana ninka koowaad ee lagu halqabsado noqday maadaama uu ku baxsaday baxsad yar oo cajiiba isaga oo ka baxsaday xabsigii ugu adkaa ee ku yaalay waddankaasi Mexico. ninkan oo ku xidhan oo markii dambe loo wareejiyay waddankaasi Mareykanka ayaa ku xidhan ilaa xabsi daa'in ilaa uu ka dhinto. xabsi daa'in baaba lagu xukumay markaasay qoladii xaasidnimo wax ka qabaan ayaa haddana waxay ugu sii dareen 30 sano oo xarig ah. xabsi daa'in baaba la yidhi xabsi daa'in haga loo dhaafayaaba marka qisadani halkaasi ayay ku eeg tahay. channelka subscribe noo saar. aad iyo aad baad mahadsantahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.